Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena akhbaaraadka Bollywood kanagoo kusoo qaadan doona qodobo aad u xasaasisan fadlan hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato janaalkeena fadlan subscribe noo saar muuqaalkan like saar aragtadaana commentiga noogu reeb waa kay superstarka doorka weyn ku yeelan doona filimka Adibarush ee Barbaas iyo Saif Ali Khan ku dagaalami doonaan filimkan Adibarush waa mashruuca ugu hadalhaynta badan waqtigan dhammaan filmada cusub maadaama la isugu keenay Barbaas iyo Saif Ali Khan oo laadar iyo atoore ku dagaaltami doonaan filimkan arrinka xiisaha leh wuxuu yahay superstarka caanka ah filimkan lagu soo diray cid kale ma ahan waa Ajay Devgan kaasoo door weyn laga siiyey filimkan inaba caadi ma ahan filimka la isugu keenay Ajay Barbaas iyo Saif maxaad ka filin kartaa intaas marka laga soo tago directorka filimkan waa Om Raut waana ninkii sameeyey filimkii blockbusterka weyn noqday Tanhaji ee ay hogaamiye ka ayeen Ajay Devgan iyo Saif Ali Khan mar kale ayuu la midoobay xidigahan balse markaan Barbaas ayaa meesha ku jira mashruucan waa mid diinta Hinduuga dhexgalayo Saif ayaa laadir ka ah ama door xumaan ah halka Barbaas uu atoore ka yahay waxayna u muuqataa in Ajay Devgan uu caawiye ka yahay filimkan Bollywoodka wax walba ka filo weli ma aragtay Ranveer Singh oo labo ah director Rohit Shetty ayaa ina tusi doono Ranveer Singh iyo Rohit Shetty ayaa mar labaad dib u midoobi doonaan kadib guushii weyneed ee uu gaaray filimkoodii koowaad ee Simba kaasoo blockbuster-ka box office-ka ka noqday Ranveer Singh iyo Rohit Shetty ayaa sanadkii 2018 si wadajir ah u shaqeeyeen filimkii action-ka ah ee Simba kaasoo box office-ka ka soo xareeyay lacago ka badan 250 karoor Rohit Shetty oo filimadiisii ugu dambeeyay sida Simba iyo Suryavanshi ay action ahaayeen ayaa haatan doonaya inuu actionada ka nasto oo u weecdo dhanka comedy-ga oo uu sidoo kale guul weyn horey ugu gaaray director Rohit Shetty ayaa filimkiisii xiga oo comedy ah noqon doona wuxuuna hogaamiye ugu dhigay labo Ranveer Singh haddaan si kale u dhahno Ranveer Singh ayaa double role ku dili doona filimkaas filimkan oo aanan weli magac loo bixinin ayaa waxaa sheekadiisa laga soo minguriyey filimkii Angkor kaasoo soo baxay 80-maadkii waxaana hogaamiye ka ahaa Sanjeev Kumar iyo Devan Verma oo ayagana double role filimkaas ku matalayay Ranveer Singh ayaana filimkan hogaamin doona asigoo labo ah yacni asoo labo Ranveer iska dhigi doona waxaan xusid mudan in Rohit Shetty uu yahay directorkii hore u sameeyey filimada taxanaha ee shactirada badnaa misna hirgelay goolmaal oo laga daawaday 4 qaybood degdeg booliska India u dhacay guriga jilaaga caanka ee Vivek Oberoi iyo xaaladda oo isku cakiran Vivek Oberoi oo mid ka mid ah jilayaasha ugu caansan Bollywoodka inkastoo waayadan dambe uu wacay dhankan taxanayaasha jilaagan ayaa maanta waxaa gurigiisa si degdeg ah ku tagay booliska India gaar ahaan qaybta damabaarista iyo la dagaalanka maandooriyaha sababta ay booliska guriga Vivek u tageen ayaana ahayd in ay ku raad joogeen nin lagu magacaabo Aditya Alva oo ah Vivek Oberoi saydigiis waxaana lagu haystay kiis la xiriira maandooriye booliska ayaana waxay heleen in ila sheega in Aditya uu ku dhuumanayo guriga Vivek maxkamadda ayayna ka soo qaateen warqadihii ogolaanshaha ee guriga Vivek lagu baari lahaa kadibna guriga ayay si toos ah u galeen ayagoo baaritaankooda bilaabay Aditya Alva ayaa waxaa dhalay wasiirkii hore ee India Shivraj Alva isagoona sidoo kale Vivek saydigiis u ah waxaana horaantii sanadkan laga helay kiis maandoori ah booliska ayaana tan iyo waqtiga ku raad joogeen jilaaga Vivek Oberoi weli kama uusan hadlin arrinkan iyo waxa ku saabsan kiiskaba